wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi gudoomiyaha hay'adda imtixaanaadka Soomaaliland iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolada ayaa shir jiraayid si wada jir ah ugu qabteen xarunta wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Hargeysa waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in imtixaanaadka shahaadiga ah ee Soomaaliland ay ardayda sanad dugsiyeedka 2017 ilaa 2018 ay u fadhiisan doonaan 30 bishan Juun waxaana mas'uuliyiintani fariimo kala duwan u direen ardayda imtixaanaadka galaysa iyo waalidiintooda waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya sanadkii hore la dagaalanka jiitinka waan bilownay sanadkan waxa weey wasiirku isna waxa uu kale ku soo kordhiyay runtii waxa kamid ah tayeyntii maadaama oo qaranku uu ka dhigtay target in la tayeeyo sanadkan uu ka bilownay inaanu ardayda la kala reebo imtixaanka markuu soo baxo saad ka war haysaan D baa u badnayd majority-gu D iyo C baa average-ka ardayda Soomaaliland noqday taas markaa aad sanadkan wasiirku iyadana uga dagaalamay markaa waxa la isla gartay in waxan maxaa sababaya xafiiska imtixaanaadku baaris dheer buu markaa sameeyay sanadkan ardayga xaq u loo keli waa inuu galaaba leeyahay imtixaanka form 4 ee 12 sano si sharcigu waxa soo dhameystay anagoo ka duulana markaa digreetada wasiirka waxaan markaa u bixinay sanadkan halku dhaga waa turxaan bixin iyo tayeyntii waxbarashada imtixaanaadku sanadkan waxaan ugu talagalnay inuu noqdo imtixaankii ugu adkaa hadii la yiraahdo oo aan ugu talagalnay in aan qishkana ka ilaalino mobilada ka ilaalino wax kasta oo suuragal ah in uu si cadaalad ah u dhaco waxaan waalidiinta iyo ardaydaba u sheegaynaa imtixaanka inaanu adkayno ugama jeedno inaanu ardayda iyo caruurtayda dhibno laakiin waxaan uga jeednaa inaanu tayada waxbarashada kor u qaadno waxaan rabnaa tayadii waxbarashada inaanu soo celino oo wasiirku nagu hogaamiyo sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhawaajiyay ardaygu isagoo bisil oo imtixaankiisa dugsiga 8ka iyo dugsiga sare ka soo baxay inuu jaamacad haweysan karo waxaan wasaarad ahaan qorsheynay oo wasiirku nagu amray inaanu dhammaan kormeero kasta iyo maamulo kasta oo iskuulka uu joogo iyo macallin kasta iskuulkii uu yaqaanay ardaygu yaqaanay maahay aanu meel kala geyn fariimaha kuwa ugu horeeya ee aanu baahinayna waxa weeye arday 28 inay imtixaanka galayso oo 18 iyo dheeraad ay yihiin kuwa dugsiyada dhexe 10 oo dhowdhowna ay yihiin kuwa dugsiyada sare fasalka afraad galaya guud ahaan marka la isu geeyo waa 28 iyo dheeraad ardada imtixaanka galaysa waxa fariinta ugu adag ee aan rabnay inaan gudbino waxa weeye in aanan ogolayn ama aad looga shaqeynayo aad looga taxadirayo wixii la oran jiray qishka sida daraadeed cidii lagu qabto ee joojin weyda inay mutaysan doonto in imtixaanka laga baabi'iyo waxaan ogeysiin ku bilaabaya in uu imtixaanku bilaabmi doono bisha aynu ku jiro 30keeda وعجروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي Universal Hargeysa